qoyska waxa weeyaan mujtamaca iyo bulshada muslimka ah bulkeetigii uu ka samaysmaayo waay bulkeetiga intaan guriga laga dhisin intuu yaalaa midba meel uu yaalaa soo maaha markii guriga laga dhisana maxay samaynaysaa hal derbiyay samaynaysaa halkaa derbi ma derbi meel yaalo suuqa laga soo gato oo la dhejiyaya maya laakiin waxaa bulkeetiye inta la soo qaatay la isi saarsaaray oo la isku dhedhejiyey maxay sameeyeen derbi ayay sameeyeen taa micnaheeda waxaa la mida mujtamaca muslimka ah iyo bulshada muslimka ah waxay ka samaysan tahay qoysas isku tagtagay haddii qoyskaasi uu yahay qoys hash ah oo burbursan oo ilmaha ka soo baxaya ciyaal weero ay noqonayaan oo ismidiyeynayaan oo isdilayaan oo mooryaan ay noqonayaan oo quraan aysan waxba ku haynin oo hooyadii aabbihii cadowna maaha heshiisna maaha la leeyahay oo meesha la isku taagan yahay macnaheeda derbi toosan maa noo dhismay maya derbigeenu burburi doonaa horuu ka burburi doonaa hadduu derbiga burburana cadowaa kaa soo galaayo dhaxanaa kaa soo galayso bahalaa kaa soo galaya yaa ku difaacaya waa maya qoyska muslimka ee marka maxaa waaye waxaa weeyaan bulkeetigii bulshada muslimka uu ka samaysmaayo waay ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa kariimkaa markii la joogo waxyaabaha qaar si guuda uga hadlay laakiin iyadoo faahfaahsan yaa noo sheegay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam asaga naftirkiisu ma maskaxdiisuu ka hadlayaa maya in huwa ilaa waxyun yuuxaa ayib cibaadaadka iyo xajka iyo sida loo tukanayo iyo sida loo soomaayo iyo kulliyaa noo sharaxay xabiibkeena maxamed sala allahu alay wasalam laakiin ilaahay qoyska markuu ka hadlayay wuxuu ka soo bilaabay markuu qofku ku fikiri rabo inuu qoys sameeyo iyo markuu qoys samaynayo iyo maalinta la meherinayo iyo markii guriga la tago sida loo dhaqmayo cidda mas-uulka noqonaysa iyo haddii khilaaf yimaado see loo xalinayaa hadduu khilaafka gabadha ka imaado ilahay suu kala qaada fiiri hadduu khilaafka gabadha ka imaado see loo xalinayaa hadduu wiilka ka imaado see loo xalinayaa haddii qoyskaasi uu kala tegayo laba miduu ku kala tegaya inuu furitaan yimaado ama inay dhimasho timaado see haddii isfurayaan isku furayaan haddii ay dhintaan maxaa ka dhalanaya qoyskaa wixii ka dhashay oo ilmo ah hadhow maxay dhaxaloo yeelanayaan ilaa ilmahaas ay ka qaangaarayaan uu qur-aanka ka hadlay qur-aanku shayga markuu ahamiyad siinaya saa ilaahay uu tafsiiliyey xaqiiqatan muhiimaduu leeyahy ibtidaan markuu qofkii soo qaangaaray ku fikirayo inuu qoys sameeyo ilaa qoyskaasi uu ka dhammaanaya ee ilmihii ka dhashaan ilmaha hadday agoon noqdaan waxay heli lahaayeen markay qaangaaraan ilaa xoolahooda gacanta laga saarayo ayuu ka hadlayaa qof ma jiraa marka shirkad markii rabo in la aasaaso ama anigaan dhakhtarnimaan bartay markaa rabo inaan ilmo daaweeyo 6 sanaa la ii soo diyaarinahay 6daas sano maxaa baranaysaa si dad loo daaweyn lahaa leh qoyska saa u dheer ee ilaahay uga hadlay ee ilaa halkaa ilaahay uu uga hadlay qof bartay ma jiraa intuuna samaynin ka hor qof rabo ma jiraa inuu barto wax ka fahmo ilaa ilaahay ahmiyaddaasuu siiyey waxa ilaahay muhiimad siiyana adi maxaa lagaa rabaa inaad siisid inaa muhiimad siisidaa lagaa rabaa sababta ilaahay muhiimadda u siiye mataqaan sababta waxaa weeyaan ilaahay bani aadamkan asagaa sameeyey markuu sameeyana wuxuu ugu talagalay bani aadamka inuu sii socdo oo uusan dhammaanin jidkuu ku sii socon karo maxaa waaye waa inuu qoys noqdo waaye jid kale ma ku sii socon karo haddii kale bani aadamku waa baaba-a saa darteed si bani aadamkaasi u sii jiro oo ilaahay jidkuu abuuray ay u qaadaan oo abuurka ilaahay uu abuuray iyo kitaabka naloo keena waa isku dhigmaan baan ku yidhi haddaale maxaan ku dhahay annaga waana lasa samaystay yaana sa samaystay allah subxaanahu wa tacaala ayib ilaahay markuuna samaysanayana muxuu noo soo raaciyey kitaab oo ku munaasib ah siduu noo abuuray asaga ma oga suu soo noo abuuray waxaan u baahannahay waxaan helayno waxaan rabno waxaan samaynayno ilaahay asagaa og kitaab wuxuu noo soo raaciyey danteenna iyo caafimaadkeenna iyo horumarkeenna uu ku jiru noo soo raaciyey haddaan kitaabkaa sidiisa u qaadano maxaan dhahnay waa ku liibaanaynaa haddaan kitaabkaa ka leexanana waa lagu jabayaa kitaabkeena qur-aanka ilaah wuxuu ku qoray markii nala sameynaya horta wax nalka sameeyey iyo saan u samaysannahay wuxuu kaloo ilaahay uga hadlay waxaan u baahannahay iyo waxaan rabnay iyo wax nafteenu ku abuuran tahay wuxuu kaloo ilaahay uga hadlay sidaan u noolaanayno iyo sidaan u dhaqmayno wuxuu kaloo ilaahay uu ku sheegay walilaahi almasalu aclaa taxdiiraat waxyaabaha iska ilaaliya haddaad samaysaanna dhibaa idinkaga imaan doono ilaahay suurado tiro badan uga hadlay qoyska
سورة النساء إلهي أنت أقول بدن كجاه الله. سورة البقرة أكثر من 10 سور. سورة النور، سورة الطلاق، سورة التحريم، كل إلهي محوقة هذا لي محوقة لقويس كإسلام كإلهي وهذا. إيه أحكامتي كده لنا يسقويس إلهي وهذا لي.